wuxuu yiri cunug yari hooyo she is doing her thing hooyo is doing her thing haddii aadan ogeyn doing her thing wuxuu ka wadaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله اليوم السلام يا ميل كستود مسج كنا كده جاي سنة وحن إنك جمع هاد علنا يا دقيست كنا وحن إنك عد سنة يا سو مسج كانوا وجارة ضد عادي أدو فربضن please subscribe to channels goal كانوا حويه إن أمبرارو جنون بالشدينا سيدي ونقدر ضد براروكسن وأدونك يوعي جسد مرور بلا صعدة أدبنا إني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يلا أن السلام يا ميل كسر دوك جوكتان ولكن فرحان ومالين جمعة ومالين كانوا يسكبروا رجينشرني وناجا وحن ربع أنا كحسوسيو إن أن وناج حسوسينه وما بهند إن أن وداد نقطة أما أد وداد نقطة وحنو بهنها إن شاء الله تعالى أنت يرتعي أن وداد هذا كم قلني وناجا إن نسكو حسوسينه إله سبحانه وتعالى أن ما ركت يسكبروا رجينا وناجيسا waxaan rabaa inaan maanta inii sheego in badan oo ininka in kamid oo aniga aan kamid ahay oo aan xaafid ahayn oo bishaan ramadaan aan quraanka inta laga yaabo inay page to page dhameeyaan in markii aad maqasho qof baa quraanka bil ku maalin ku dhameeyay 3 maalmood ku dhameeyay 4 maalmood ku dhameeyay in aad dareento in cariiri aad dareento aad isdhaxdo aniga maxaa ii dhiman aniga maxaan sameyn karaa waxaana dhacaysa in dadka laftigooda quraanka saa u dhameeya aad laga yaabo inaad xogaa yar aad u qaado xogaa ma aragtay calal xumo ilaahay fadligiisa asaga cid walba wax ku fadila waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryeynaa ama ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan u baryeynaa inta quraanka xambaarsan in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir badan ka siiyo annaga inteena kalena ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajirna siiyo waxaan sheekh ka dhageystay ama ma aragtay bishaan ramadaan aad iyo aad uga helay wadaad ka hadlaya dadka aan quraanka bishaan ramadaan ku qaybi karin waxyaabaha ay sameyn karaan waxaan kaloo rabaa inaan inii sheego qiso cajiib ah oo ayada laftigeeda for free ah oo aan u baahanahay freegaas inaan uga faa'iideysano inaan u fahno ilmaheena inaan arintaas fahansiino haddii ilmahaagu ay qurbaha ku koreen wadankay doonaan baa ku koraan ay arkaan qof ajnabi ah oo siiba cadaan ah oo laga yaabo inuu khamiis iyo gar leeyahay oo haddana diinta ka hadlaya waxaa dhacda inay u arkaan qofkaas in uusan ma aragtay muslimnimadiisu ay xogaa yar wiir la noqoto waxaa dhacday mar aan meeting ku qaban jiray gurigeena baa waxaa noo yimid Friday night nin muslim ah oo cadaan ah oo gar leh oo aad noogu qodbeeyay ilmahayga qayb ka mid ah waxay la noqotay so surprise in ninkan oo cadaanahay uu diinta saa u garanayo maxaa yeelay waxaa jira perception ama mala ah qofka muslimka ah inuu aniga iyo ekaado oo muslimnimadu ay tahay mid aniga iyo adiga iyo dad khaasa ay leeyihiin sida dadka waaweyn ba qaarkood perceptionkaas ama malaha noocaas oo kala ay qabaan oo ah hadday arkaan qof gar weyn ama khamiis wata inay u qaataan inuu sheekh yahay oo aan rabo inaan kuu sheego inaanan ahayn sheekh ahayn laakiin inaan wanaaga sheegno aysan marka waxaas waa perception ay ilmaheenu ama dadka waaweyn aaminsan yihiin diintu ma ahan dhar mana ahan luuqad waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax uu dadka dhan u soo dejiyay waay waxaana laga rabaa inaan fahansiino ilmaheena bishaan ramadaan oo ay ka faa'iideystaan oo ayaguna ay ogaadaan in waxa aan sameynayna aysan caado ahayn ayse tahay cibaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu farilay ama ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu waajibay wuxuu yiri cunug yari hooyo she is doing her thing hooyo is doing her thing haddii aadan ogeyn doing her thing wuxuu ka wadaa hooyo waxay sameynaysaa ama actively u sameynaysaa wixii caadada ahayd hooyaduna ilaahay bay baryaysaa subxaanahu wa ta'ala maxaa yeelay waxaa jira disconnection ama kala go'id ah cunuga yarka oo qurbaha ku koray oo laga yaabo inaad adiga wadaadkaad dhageysato aad rabto inuu dhageysto amsan fahmi karina inuu u qaato waxaan inay tahay si aan la rabin in loo qaato sida ugu fiican marka oo anaga waaweynka aan la ka raba bishaan ramadaan saar ilaahay ugu xirmayno ducada inii sheegi doonaan sheekha ka dhageystay inaan u helno way aan ilmaheena ugu xirno Allah subhanahu wa ta'ala hadday Danish ku hadlaan iyo hadday luqad kale ku hadlaan iyo hadday Spanish ku hadlaan iyo hadday af Soomaali inaad u raadiso cunugaagu luqad uu ku fahmi karo
ama luuqad uu ku garan karo waxa aan samaynayna inaysan caado ahayn inay tahay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu faral yeelay oo nala ka raba annaga iyo ayagaba inay sameeyaan oo aad iyo aad muhiim u ah inteena marka oo aanan xaafidiinta ahayn oo laga yaabo inuusan qur-aanka dhammayn karin this is the sheekha ducadu ii sheegay oo aan jeclahay maanta inaan inii soo gudbiyo oo aad iyo aad cajiib u ah waaye wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala qof waliba waxbuu ku fadlay qof waliba ilaahay subxaana wa tacaala waxbuu siiyey haddii oo ilaahay waxa uu ku siiyey aad ilaahay uga mahadsan subxaana wa tacaala weligaa uma baahnaanaysid shaydaankuguna kugu waswasgareynayo qofka kale oo walaalkaa waxaa uu haysto in aad u qaado qiiro xun qiirada fiican ama tartanka fiican waa wax wanaagsan waay waad garanaysaan intiina diinta si fiican u garanayso subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar salaada kadib 33 la yidhaahdo meesha ay ka timid ee dadka maaragtay aan waxba haysanin uu nebigu u sheegay kuwii wax haystana ay ka daba sameeyeen uu yidhi ilaahay baa dadka kala fadla markaad waad fahansan tahay marka haddii marka in badan oo bishaan ramadaan aad maqashay waxa ugu fadliga badan ee la sameeyo qur-aanka waaye in qur-aanka lagu qaybo in qur-aanka la sameeyo sax waaye haddaad aragto librarygayga bugag aad u fara badanaa taala oo laga yaabo all of them markaad u fiiriso qur-aanka inuu ka noqonaya in yar laakiin dad badan oo saasoo kale bugag badan u akhriya inaysan qur-aanka ku qaybin some reason aniga kula hadlaaya waa waxyaabaha aan improve garaynaya sanadkan oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryayo inuu ii fududeeyo laakiin hadday dhacdo inaad groupkaas ku jirto let me give you hope the sheikhu siduu noo sheegay qofku waxa uu samayn karaa oo ugu fiican bishaan ramadaan waa cibaado ilaahay ugu dhowaanaya iyo maadaama bishii ramadaan ay tahay bishii qur-aanka oo jibriil uu nabiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam la akhrin jiray oo lu yidhi ramadaankii ugu dambeysay uu 2 jeer nabiga kula qaybay qur-aanka maxaad samayn kartaa siduu sheikhu noo sheegay waxaad samayn kartaa in aad ilaahay subxaana wa tacaala inta qur-aanka aad taqaano aad akhriso salaad badanna aad tukato ilaahayna subxaana wa tacaala aad barido laakiin sheikhu wuxuu noo sheegay hal wax oo aad ku wada samayn karto in mar kasta oo aad salaad tukanayso qur-aanka ducooyinkiisa ku jira markii sujuudda dheer ay culimmadu samaynayso aad ku celceliso markii aad lugaynayso aad ku celceliso sida rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba naar rabbanaa hab lanaa min ducooyinka qur-aanka ku soo aruuray in aad mar walba carabkaaga ku celiso number 1 waa duco number 2 waxaad akhrinayso waa qur-aan waa bishii ramadaan ilaahayna subxaana wa tacaala miisaankuu kuu saaraya siduu shiikhu noo sheegay oo wuxuu kuu kaabayaa ama kuu buuxinayaa inta kaa maqan maadaama dadaalkeeda iyo hawsheeda aad la timid aan recap ku sameeyo kusoo celiyo try isku day insha allah tacaala haddii rabbi raalli ka dhigo in mar kasta oo aad lugaynayso ama aad socoto ama aad firaaqo hesho ducadaas qur-aanka aad akhriso haddaad awoodo markii aad sujuudsan tahay oo sida culimmadu sheegtay markaad ilaahay ugu dhowdahay inaad maaragtay aad akhriso iyo mar kastoo aad free tahay ood gaarigaaga socoto bishaan ramadaan oo uusan carabkaaga ka bixin ilmaheenna yaryarka ahna bishaan ramadaan saan annaga waaweyn u cibaadaysanayno aan isku dayno inaan ayagana ilaahay subxaana wa tacaala ugu xirno oo aysan u arkin waxaan inay caado tahay ee u arkaan inay cibaado tahay sida dadka waaweyn ba ay u arkaan qabiiska iyo garkuba inuu leeyahay ama ay leedahay diinta islaamka kaliya ee waxaan aysan ahayn wax la xiran karo uusan fahansanayn cunugeena yuusan u fahmin in ay only waxaan waxa sameeya ay tahay oo ay caado tahay oo aniga adiga ay tahay ee waxaan ay cibaado tahay oo cibaadada laga rabo qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ka mida oo nolol ku addoonsaday waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryayaa inuu nooga dhiga bishaan bil barakaysan oo dembigeena lagu dhaafo jimcaha dambe waxaan insha allahu tacaala ka hadli doonaa the best investment oo qof ibni aadana uu samayn karo insha allah tacaala haddii ilaah yidhaahdo nala soco haddii rabbi raalli ka dhiga aad baan kuu salaamaya assalaamu calaykum